Shirweynaha dhalinyarada beesha Bahgiri ee magaalada Nairobi ayaa lagu qabtay hoolka Paradise ee xaafadda Pumwani. Shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay siyaasiyiin iyo mas'uuliyiin ka soo jeeda beesha Bahgiri, kuwa xilal horay u soo qabtay iyo kuwa hadda haya xilal dowladeed iyo kuwa bulshada dhexdeeda ah. Ujeedada shirkan ayaa ahayd in lagu xoojiyo midnimada beesha, isgarab qabashada iyo sida ay bulshada Bahgiri ugu midaysanaan lahayd danaha guud ee siyaasadda iyo horumarineed ee soo socda. Intuu socday shirka, waxaa si qoto dheer lagu dooday sida dhalinyarada iyo hoggaanka beesha ay ugu wada shaqayn karaan hal mowqif si loo helo cod midaysan oo saameyn leh. Marka laga hadlayo arrimaha siyaasadeed ee dalka, mas'uuliyiinta hadalka jeediyey ayaa ku baaqay iskaashi, kalsooni iyo is-ixtiraam, iyadoo carabka ku adkeeyeen in midnimada ay tahay furaha horumarka iyo awoodda beesha. Shirweynaha dhalinyarada Bahgiri ee Nairobi ayaa lagu soo gabagabeeyey jawi isfaham, iyadoo lagu ballamay in la soo xoojiyo kulamo noocan oo kale ah oo lagu midaynayo aragtida iyo qorshaha beesha ee mustaqbalka dhow. waxaad noogu yeerteen maanta waan maqalnay, laakiin horaanna waa la ii sheegay. waxaan diyaar u ahay dhibka Nairobi ka jira oo cidda ah, qof la xiray, qof wax gaari ku dhacay, qof isbitaal yeelo, qof la tarxiilahaayo, adiga siday ahaataba dhibaatooyinku waa iska badan yihin soo maaha. marka waxaan idin leeyahay go ahead, garab baa idiin ahay, guddi fiican sameeyo, dhaqaalaha la aruuriyo. dhalinyarta mid baa hadday dhahay 2,000 oo qof oo Bahgiri ah oo mid 2,000 oo shib 2,000 bixisa bishii haddii la helo waa 4 milyan, waa lacag badan. marka accountna sameeyo, accountka laakiin ha ahaado mid dadka loogu qidmeeyo oo qofka la xiro, qofkii baahan, qofkii reerka ka burburo. anigana waxaan kugu deeqayaa maanta qofka horaan ahay 100,000 in account ka dhigataan oo accountka aad ku furataan. furitaanka hore accountka la furaya bangiga wuxuu ku dhahaa lacag ma dhigaysaa. marmar waxaa ku 500 aad dhigi kartaa, 1,000 aad dhigi kartaa, laakiin waxaan rabaa inaad 100 dhigtaan. 100ka waa idin siinaya insha Allah. marka bishana waa iska socon, waxaad igu soo qorataan fadhiisto, waxaad igu soo qorataana bil walbaba account waan ku shubaya insha Allah. midda labaad ood nagu yeerteen waxaa waay maanta midnimo ha ahaato, laakiin midnimo oo dhaqanka ah. midda dhaqanka waxaa waaya in suldaan noola keeno, sagaalayaal noola keeno. weli waa sugahaynaa suldaankii, waa noola soo wadaa, diyaar baa unaynu ka caana shubno suldaankaas. marka midnimada, marka waxaan rabnaa suldaanka ha noola keenno, sagaalayaasha ha noola soo raaciyo, aan ku caana shubna dhaqanka midnimada. taas waay ilaahay midnimo ha siiyo, amiindaha midnimo Allah ha siiyo, dad isku toosan Allah naga dhigo. laakiin waxaan rabaa insha Allah tacaala dardaarankeedu waxaa waaye ciddan waa halgeeda ay hoos hargelihaysaa, geedkaas ayaa dabla gelin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaan rabnaa maanta nin walba oo beesha Bahgiri oo meeshan isugu imaaday in aan isla qaadano fikir ah in aan walaal nahay, inaan isku dal nahay, inaan isku dad nahay, inaan isku dal nahay. aad iyo aad arrintagiida waxaan samaynay arrin maaragtay in aan maaragtay komitiye iyo nidaam aan foomgaraynay ka warqaba dadka ninka madaxda ah iyo ninka maaragtay mujirka ah iyo ninka miskiinka ah dhexdooda waxaa u dhexaysa adeeg bulsho oo isku xiro. aan noqono dadkii wixii dhibaataysan iyo wixii caqabad inaan maaragtay kan madaxdana gaarsiin karna, kan miskiinkana aan ka warqabi karna. arrimaha noocaas ah waxaan u malaynaa nin walba way ka guuxayaan dareenka iyada nin walba oo meesha fadhiya maanta aan sheegnay nin walba waa ka guuxay. haddii annaga ilaahay sabab nooga dhigay in aan maaragtay dadkaana isu keenay oo soo baxnay, waxaan rabnaa in aad ugu taageertaan, garab nagu siisaan, af iyo aadib nagu kaalmaysaan, aqligiina maskaxdiisa nagu kaalmaysaan. dhalinyartaas markay iskuulka dhiganayeen waxaa la dhihi jiray adinkaa ah hogaamiyaasha berito. marka maanta waxay idin sugayaan hogaamiyaha berito aad u sheegi jirteen
inaad u culaysaan ayaan u baahanahay. dhammaan hooyooyinka meesha jooga waan u mahadcelinayaa waqtigooda horay ayagana oo nagala soo qayb qaatay meesha fadhigan marka waa mahadsantihiin. dhallinyarada hawshan bilowday yaysan ka cajisin, yaysan meeshaa hadda ay ku bilaabeen oga tegin ee hor ha wadaan. waxaa kaloo ku dardaarmaya war dhallinyaroy qoys iska daayo, hebelkaa iska daayo, waa sun dadka kala wada, waa basal mid walba qolofta aduugaanta kale ay ka daba imaanayso. war idinkoo helayo in aad noqotaan ilaahgeedi daraawiisha ha noqonina qoys. waxaadna ku fikirtaan hawl aan loo adkaysan, aan dhib loo gelin, aan loo dadaalin inaana laga mira keenin. nin raaxa wax ku hela ma laha. haddaad aragtaan guul la gaaro dhib baa ka horeeya, haddaad aragtaan barwaaqo la gaaro waxaa ka horaysa dhib. waxaan leeyahay dhallinyarada baageriyi waad fiican tihiin, yaan la idin niyad jabinin. ummadda tiirdaxaadkeeda dhallinyaraa ee hadhihina oday baa wax laga hadlayay, oday baa kana idinkaa tiirdaxaadka ah ee ummadda badala. waxaan u malaynaa bahgiri tiriibkan ma 4 heli doontaa ma 3 kursi heli doontaa. waxaan bilownay shaqadan oo dhallinyarta ay bilowday 2 years to the election ay bilaabeen processka dhallinyarta. processka ay bilaabeen wuxuu ku tusi doonaa in ay ciddan ishaarada tiriibkan ay fiican tahay. annaga geelaan dhaqannaa oo nin baa hadda goor wuxuu yidhi geel xuladiisa ay dirdiris aarigiis cado malay sooma. mid kalena wuxuu yidhi geel habeenka ciyaaraya hadday aragto waddaha ku ciyaaraya oo 6 saac 7 saac haweeney mala soo xariirin ilaahayo biraayada ku jirta naga bixi. marka baagiri waxaan u malaynaa tiriibkankaan soo dhaafnay 7 saac haweeney baan ku ciyaaraynay dhulka, laakiin ilaahay baan na gudbay. siyaasaddana waa iska imaanay wax permanent element ma qabta permanent oo kii kala buushada ma aha. politics it came and go. so waxaan rabaa dadkeen inay ogaadaan siyaasadda waa inay geliyaan. waxaa la dhihi jiray meelahan dhow ay ku hayaan, laakiin hadday gudaha kaa tagta way gudeli. war nin taagan oo kursi ka dhacay oo dhimanaya ma jira. soo markiisi dad waa nool yahay, wuu nool yahay, aniga waa noolahay, xuseen wuu nool yahay. soo markiisi anaga haddaan nahay bahgeri mar waliba haddii county ay tahay waa in county assemblyga dad noo fadhiyaan. ma jirtaa mise ma isku raacsanna in county assemblyga dad noo fadhiyaan? ma jirtaa misena county assembly hadda hal wiil aa noo joogo iyo gabar oo nominated aa noo joogta. marka waxaa la rabaa in dad tiro leh ay meesha ku fadhiyaan oo xaqaadii meesha kaaga qadaan. tiro markaa idin leeyahay 3 iyo 4 hadday meesha ku fadhiyaan xaqaada ayaga u dooda. laakiin 1 iyo 2 hadday yihiin cilladahoodaa iska jirta. waxaa kaloo jirta national government. national government CDF oo wajiyasa u falsiiyaa meesha aan ka imaanay hadda aan waxaa ka imaata 140 milyan iyo xoogaha iyo meelahaas iyo awooddii ninkii la soo doortay oo meelaha shilimaad iska tuuraro ama hay-ad ka imaani ama hay-ad kaloo dowladeed ka imaani oo haddana ninkii la soo doorto uu ku soo qaadi karo. haddadaan la taaganahay waan ka maqanahay miiskaas oo wax lagu qaybsanayo. diinta waa nolol kaamila wa haddaan diinta anaga qabsanno wax walba way noo hagaagayan. wixii maanta naga qaldan waxaan ku hagaajinaynaa ilaahay tawbadiisa iyo diintiisa inaan garab u noqono. wax walbana maaragta way noo hagaagayaan. tan kore oo guud oo midnimo ama ka jirta magaaladaani Nairobi ama within area Nairobi ka jirta waliba aan u midowno aan mid ka ahaan aan wax wada qabsan. hal shay aan ugu darayaayo aayadda wajah magaalada inta guud ah loo yeesho. أصبح مع الدليل أي تعيد دليل رأي عدة منها إن هذا الميسك كم مختين سود رك الدون بدليل رأي الله يا زمن وحاج جبتين فرصتها أي بدنين سود هنا فرصتها ستين رزق إله باقري رأس الشيء الرزق إذا وهوايا أفعرب بدل الله مرة وقت قد نجوه
social media opportunities baa ka jira, scholarships ayaa jira adduunkan oo laga faa'iidaysta, waddankan naftiisa scholarships programmeala ka jiraan. xogta isku aruursada, networking dhexdiina hagaajiya, nin walba meesha uu joogo dadka ka bara, network hagaaji, hor u socod yeela. soft skill inaad dhisan karto isku day. markii aad wax raadinaysa ha raadinin lacag ee waxaad raadisaa xirfad joogto ee wax ku qabsata. markii aad wax raadinaysa waxbarasho aad kordhisan karto isku day. waktiga hadda la jooga waktiga xoolaha la raacayo oo xoolaha la soo dirsanayo oo xoogga la isticmaalayo lama joogo. maanta qalinkaa shaqaynaya dadka, adiga inta naga jirtaa qalinkaa shaqaynaya. blame gameska ayaa ugu badan, madalba qof kalan farta ku fiirnaa intay naga jirtaa maya. qof walba shakhsiyadiisa meesha uu joogo maasaga waxaa rabo meel iska soo saara. waa maalin farxad eegini inta aan ka wahaday oo looleeba joogto qalin maan konta way ka badan yihiin. intaan maanta maadin waa inta aan kayna hoyga saakin inuu waxaa laga dhigi karine warbeedna waa qodobka soo guriga dad baramanaay, laakiin hadda ma aha saas. meesha hadda waxaa leeyahay gidey gabdhaha guurkooda hala fudayo. gabdhow kole baani kursigii baagii bulshada ragga iskuulaha ismaa fuli, ragga iskuulaha fofo, ragga iskuulaha fuli waraa fuli kuwa baagii afra bulshada afra shaalin baa dadka sheegay. anigu waxaan leeyahay maalin farxadeed waaye intaan ka hadlaynaa maaragtay iyo wanaagga ilaahay ka hadlay inta xumaatayna sheegay ka hadlay. wasalaamu calaykum waraxmatullah. maanta waa maalin qurux badan, waa maalin kale oo na weligeena filaynin. alxamdulilah, ilaahay baa mahad iska leh. intaana qof oo baagalo isu imaato dan baagalo isugu imaatay waa wax lagu farxo. oo siyaasiyiintii fadhiyaan, oo culimadii fadhido, oo gabdhihii fadhiyaan, oo dhallinyaradeena quruxda badneed fadhiyaan, waa wax kale maanta maasha allah. wadalka waa soo ruuray, aniga wixii aan dhihi lahaa hoodaa nagu yidhi. waxaan ku faraxsanahay maanta meeshan waxaa ka dhacaya. annagu markaan gabdho ka ahaan, annagu awal baan midaysnayn. markaan weyne rag baagadiya oo midaysan, markaan weynay waan isku tashanay. ilaa 150 gabdhood dad gaaraya oo gabdho ayaan ku midaysannahay oo iska wadanaa. marka haddii hadda raggii maanta ay arrintii garteen oo isu imaadeen, ayadana way kasii fiican tahay. haddaad aragtaan nin fiican oo wax qabanhaya oo maaragtay waxaa garab taagan gabadh baa garab taagan oo la socota oo dhisaysa. diyaar waxaan u nahay inaan ragga naga garab taagnaano, inaan daba soconno, inaan hor soconno, inaan garab soconno, inaan hiil iyo hooba garab istaagno. ragga naga diyaar u nahay. danta shaksiga ummaddan oo dhan yaa lagu wada filan. marka waxaan idinka raadinaynaa insha allah inaanan dadka soo kacay inaan hurdo ku celin haddana mar labaad. hurdada aan ku celinaynana waa siyaasad xumida, sidii aan wax u raadinaynay iyo dadka la kala qaadaya inaan iyadana ka ilaalin. dadka bahgeli waxaan u malaynaa cafan xamari waa waqti yaraad siinaysaa. waxaan idiin sheegayaa maaragtay meeshaas waxaa ku yeela ninkii gadaasheena sawirka waxaa ku yeela siidka, laakiin ninkii halka nin oo siidka oo reerka meesha joogo ma ogtiin wata nina la fadhiya nin ciddaa ka yimaada inuu maanta meesha joogo ma ogtiin. waxaan ku bilaabayaa arrinta doowaashan halkan iskugu nimid oo ah in dhalinyartii ay garaansadeen in meesha xibantooda ay ka maqan tahay. waayo adduunka hadda aan joogno nin walba ama qoys kasta ama ummad kasta waxa hayaa waa dhalinyarta. dhalinyarta ayaa furaha wax kasta ah. annaga qoys ahaan xibinta naga marnaa dhalinyarta. marka ilaahay baa mahad iska leh haddii maanta ay arkeen
howlahooda waxaan ugu meelinayaa unajeedadiina dhowr baa noo sheegteen dhowrkaas badan oo noo sheegteen ha ku ekaanina objectivekiina waxaad ku darsataan in aadan ku soo koobin halganka aad wadaan kenya ama nairobi oo aad ku fikirtaan sidii aad ku midan laheedeen dhalinyarta meel kasta oo ay joogaan shanta xidig oo aan ka qabanahayba allah subxaana wa tacaala ka baqna waxaan isu habayna dhallinyaradana ha loo turo annaga awoodda buuxda oo tolka waxaa iskale dhallinyarada siyaasi dadka gacanta ku haya waa annaga walaalayaalow wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu